maamulka degmada Dangoroyo ee gobolka Nugaal iyo dadka deegaanka Dalsan ayaa madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa ay uga mahadceliyeen ceelbiyood riiga oo deegaankaasi u ballan qaaday in laga hirgelin doono waxaana sidoo kale isla shir ay ku yeesheen Dalsan ay uga hadlayaan horumarka deegaanka iyo sidii loo xoojin lahaa faafahinta warkan waxa inoo eegaya Cabdirasaaq Xasan Faarax deegaanka Dalsan waxay ka tirsan tahay degmada Dangoroyo ee gobolka Nugaal muddo sanado oo tuuladan ay asaasan tahay waxa si xawli uga soconaya dhismayaal kala duwan hadda waxa deegaanka ka socda dhismaha dugsiga hoose dhexe oo ay iska kaashanayaan dhismihiisa maamulka gobolka Nugaal kan degmada Dangoroyo iyo dadka deegaanka dadweynaha halkani waxay inta badan isugu yimaadaan shirar looga hadlayo horumarka deegaanka iyo sidii loo siyaabo qaadi lahaa shaqooyinka socda odayaal waxgarad dhalinyaro iyo maamulka degmada Dangoroyo ayaa shir isugu yimid shirkaasi oo ka dhacay deegaanka Dalsan waxaana looga hadlayay horumarka deegaanka afayeenka nabadoonnada gobolka Nugaal Cabdullaahi Maxamed Jibriil oo shirka furay kana mid ah odayaasha deegaanka waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah isagoo madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uga mahadceliyay ceelbiyood riiga oo deegaankan uu ballan qaaday shirkan quruxda badan iyo ilaah barigaan maanta aynu isugu nimi magaalada Dalsan duleedkeeda waa shir reer Dalsan qabteen waxaan dadka reer Puntland u sheegaynaa dawladda iyo shacabkaba dadka reer Dalsan inaysan ahayn dad dawladda mucaarad ku ah ama dhibaato ka shaqeeya ee ay yihiin dawladda tiirkeeda koowaad haddana shirka la isugu yimi yahay mid lagaga hadli doono arrimo guud iyo kuwa gaar ahaaneed intaba oo ay muul u tahay ilaalinta deegaanka iyo amniga ilaalinta nabadgelyada guud ahaan xagga horumarka riigii meeshaan biyo la'aan weeye riigii horey madaxweynuhu u ballan qaaday iyo wax kaleba maalintii halka noogu yimi si degdeg baan uga hawlgelaynaa biyo horeyna waa uga wada hadalay hadda maalmahan soo socdo baan madaxweynaha ka sugaynaa inuu riigiina naloo bilaabo xogayaha dawladda hoose ee degmada Dangoroyo Cabdulqaadir Abshir Muuse iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Dangoroyo ayaa dhankooda bogaadiyay horumarka deegaanka Dalsan uu ku tallaabsaday waxaana nabadoonka ay ku ammaaneen sida guud ahaan uga shaqeeyo horumarka dalka shirku markii beelu isu yimaadaan oo ay isu imaanayaan deegaanada isugu imaanayaan runtii oo ay ka hadlayaan maslaxadooda iyo danahooda dawladda waxa ugu jira faa'iidooyin badan faa'iidooyinka waxa kamid ah in bulshada lagu la dardaarmo deegaanka in la ilaaliyo in lagu la dardaarmo inay midnimadooda ilaaliyaan in lagu la dardaarmo inay wax kasta oo dhibaato ku ah deegaanka ama dadka dhexdiisa inay ilaaliyaan waxa yeelay deegaanku waa waxa nolosheenu ay ku tiirsan tahay koow dadkuna waa wixii ku noolaa runtii waan bogaadinayaa nabadoonka afhayeenka nabadoonnada ee Puntland waxaanu kale oo idinku bogaadinaynaa meesha la yiraahdo Dalsan oo dhawaan la dhisay horumarka ay sameysay iyo tallaabada ay qaaday oo ay ka hormartay deegaamadii hore u jiray waxaa jira magaalooyin idinka horreeyay oo 12 sano dhisnaa oo weli aan iskuul lahayn oo MCH lahayn oo aan abaabulkiiba ku jirin idinku hadda iyadoo la ogyahay Dalsan intii dhisnayd haddana masaajidkii dugsigii hoose dhexe MCH-kii kulli waa bilaaban yihiin waana gabagabo annagu runtii degmo ahaan waxaan idinka ballan qaadaynaa inaanu heliyo mar walba dhinacayna taagannahay Cabdirasaaq Xasan Faarax Puntland TV Garowe.